ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa in soon laynu farad yeelay sidii ummadihii innaga inagu horreeyeyba loogu farad yeelay oo aanay wax keliya inugu ahayn sababta loo faral yeelayna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa lacallakum tattaquun ina alle ka cabsataan subxaana wa tacaala daraaddeed yani waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa danta soonka laga leeyiyo qaradka ugu weyn ee soonka looga jeedaa inuu yahay in la gaadhsiiyo dadka mansilati taqwa ama alla ka cabsi subxaana wa tacaala alla ka cabsiguna waxaynu odhan karnaa waa gaayat alghaayaat waa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun jinka iyo insiga uma abuurin inay caabudaan mooyaane haddana cibaadadaa lafteeda ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun inta ilaahay aayadda hore ku yidhi jin iyo insi waxaan u abuuray inay caabudaan ay aayadda kalena ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum wardadow rabbi caabuda rabbigii idinkaydan abuuray iyo kuwii idinka horreeyeyba lacallakum tattaquun cibaadadu waxay idin gaadhsiinaysaa baa la leeyahy mansilati taqwa inay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsataan mas'alati taqwa marka waa masale qur-aanka aada ugu balballaadhan in dhowr iyo 10 meelood gaadhaysa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ballama ugu ballan qaaday in waxa uu helayo qofka alla ka cabsada waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja waman yattaqi yani aayaad tiro badan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa waman yattaqi illah yajcal lahu min amri yusra yucadim lahu ajra yukafir canhu sayi'aat qur-aan badan baa ilaahay wuxuu ku sifaynayaa qofka alla ka cabsaday iyo midhuu helaya soonku markaa waxaanu leenahay waa albaabada ugu ballaadhan ee keena dadku inay ilaahay ka cabsadaan subxaana wa tacaala ilahay wuxuu inoo tilmaamaya inaan loogu talagelin soonkan layna soominayo in laynagu ciqaabo bale ilaahay wuxuu tilmaamayaa ayaaman macduudaat waaba maalmo yaroo tirsan baa ilaahay leeyahy maalmo aada u kooban weeyaan baa alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala waxa uu ilaahay inoo tilmaamayaa inaynu soonnaa inay inoo khayr badan tahay idan bishaan inagu soo socota waa bishii ramadaan waa bisha qudha ilaahay magaceeda qur-aanka ku sheegay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan waa bisha ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey kitaabkiisa waa bisha ay ku jirtay laylat lqadr oo qur-aanku uu sheegayay inay khayrun min 1000 shahr tahay 1000 bilood inay ka khayr badan tahay waxaan leenahay marka waxaa dadka muslimiinta ay u baahan yihiin inay in badan u diyaargaroobaan oo maxay ugu diyaargaroobaan inay ugu diyaargaroobaan bisha tani wixii laga rabay inuu qofka muslimkii xaqiijiyo qaradkii laga lahaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegay can طariiqi rasuuli salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiista nebiga ka sugnaatay in bisho ajar badan ay leedahay oo dembiga lagu dhaafo inay tahay junna gaashaan qofka muslimkaa ka celiya naarta inay tahay waxyaabaha jannada lagu gaadho yacni axaadiis aada u tiro badan ayaa nebiga ka sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo wada sheegaysa fadliga bisha tani ay leedahay ilaa xad uu nebigu ku tilmaamayo in jannada la diyaariyo albaabadeeda la furo naarta albaabadeeda la xidho shayaadiinta kuwa waaweyn oo dhan la xidhxidho dadka waxa khayrka jecel oo dhan khayr loogu yeedhayo bisha tan haddaba waxaynu u baahan nahay inaynu cunno badan diyaarsanno uma baahnin inaynu guriga raashin badan la dhigo uma baahnin waxaynu u baahan nahay bisha tan inaynu caziima go-aan adag qaadanno oo ah kow inaynu ka xorowno shahwati nafs nafta hawadeeda iyo waxa ay doonayso inaynu ka xorowno oo aynu baranno in nafta lagu xakamayn karo ilaahay abuurtay waxa uu faray laga fogayn karo wixii macsiya dhammaanteed waayo bisha tani waa bil loogu talagalay qofka muslimkaa in wax lagu baro ciqaab maaha waayo aayaadka ka warramaya soonka ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yuriidu allahu bikum alyusr walaa yuriidu bikum alcusr ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinla doonayaaba alla leeyahay inuu noloshaba idin fudaydiyo yusr buu idinla doonaya gaajada tan aad arkaysa iyo waxa kanoo dham waa lilyusr adigaa fudaydkaagu uu ku jiraa iyo nolosha in lagugu fudaydiyo ilaahay marnaba idin lama rabo baa alla leeyahay subxaana wa tacaala alcusr taa adag
caqliga bini aadamka iyo maangaabnimo tiro badan leh oo gaaladu sharaxda waxaa laga yaabaa inay dadka badh ugu sawirto inay nooc min wax dhib badan le ay tahay laakiin ma aha. waxaan leenahay bisha ramadaan waa bil qofka muslimkii iraadadiisa iyo dooritaankiisa uu xoogeeyo, waa bil qofku uu barto sabirka, waa bil uu qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nimco siiyey uu xasuusto oo ilaahay u mahad celiyo, waa bil dadku mashaacir araxma naxariista dareemadeedu uu dib u soo kaco, waa bil qofka muslimkii uu u traingareeyo inuu ilaahay isu dhiibo subxaanahu wa tacaala. walidaalika ugu horrayn ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa ara'ayta man ittakhada ilaahu hawaah afa anta takunu calayhi wakiila am taxsabu ana aktarahum yasmacuuna wayacqiluun. ilaahay wuxuu leeyahy ma waxaad u malaynaysaa kuwa kan hawadooda yacni ilaaha ka dhigtay. hawada ilaaha laga dhiganaya waa maxay? naftu waxay ku tidhaahdun haddaad daba gasho dee iyadaa ku amarta, waxay sheegtaba haddaad u fuliso, waxay doonto inaad raacdo iyadaa markaasi ku amarta. kuwa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa intooda badani ma inay wax maqlayaan baad moodaysaa baa leeyihi ama wax garanayaan. waa xoolahoo kale baa ilaahay leeyihi, bale xoolaha ka dariiqo fiican. ugu horrayn caloosha tan la buuxinaya ee insaanku inta badan buuxinayo faa'iido badan ma leh. dhibta maanta taaganna waxaaba ka mid a un dadku wakhtigii wax la cuni jiruun bay bedelaane cunnadaba inay ramadaanta badsadaan baad moodaa. asalkuna wuxuu ahaa in cunnada ramadaanta qofku iska yareeyo. waxaa loo soomayaa kow ilaahay subxaana wa tacaala inaad ku caabudo, in la yskaga yareeyo ramadaanta cunnada tan, waayo cunnadu sideeday u tahay xanuun. nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiista ka sugnaaday waxa uu ku tilmaamayaa maa mala bnu aadam wicaa'an sharan min baطnih. insaanku weelba ma buuxiye buu nebigu yidhi ka shar badan calooshiisa. calooshii markay buuxsanto kibir baa bilaabma, markay buuxsanto shahwaatu nafsiga oo dhan baa bilaabma, markay buuxsanto wax badan baa bilaabma. nebigu wuxuu leeyahay calool wax ka shar badan loo la buuxiyaaba ma jirto. ee bixasbi bni aadam ukaylaat wa fii bacdi riwaayaat luqaymaat. bini aadamka waxa ku filan buu nebigu yidhi waxoogaa yaroo la rururo oo yuqimna biha salba uu dhabarkiisa ku toosista un. haddii aan cunno la daynin buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, cunnada 3 meelood oo meel ahaan calooshaada 3 meelood oo meel ahaan cunno ku rido, 3 meelood oo meel ahaanna sharaab ka dhigo, 3 meelood oo meel ahaanna neefneefsigaaga u daayla waad cifanaysa haddaad aragto xataa neefsi kari mayside. idan waxa uu nebigu tilmaamayaa inaad cunnada isku badinin ee calooshaadu wixii ay qaadi karaysa 3 meelood oo meel qudha inaad cunno ka dhigato, meesha kalena inaad sharaabkaaga iyo biyahaaga iyo wixii aad cabbaysa ka dhigta, meelna mar walba inay kuu bannaanaato. dheragta badan waxay keentaa qofku aan caqligiisu si fiican u fakerin. waxay keentaa qofka oo seexdo oo active noqon waaya, yacni qofku caajisku ku bato. waa idinka arkood duhurkii markaa dadku caloosha buuxsado hurdaa la wada daataa. sababta keenaysa waxa weeyaan qofku waxa ka lumaya xataa nashaadkii. waxaa loo baahan yahay oo qofka muslimkaa la faraya, xataa waxaa la yidhahdaa dunida markay dheragtan iyo cunnada kan kala noocnoociyo waxaan la isku walaaqiyaa tiro badatay ayaa xanuunadan tiro bataynee la socday. dadka intay cunnadoodu yarayd xanuunkooduna uu yaraa. markay badatay waxaan la cunayo waxaan la walaaqayo ayuu la batay. walidaalik baa xanuuno badanoo maanta dunida joogaa waxaa la yidhahdaa waa amraad alxadaara bay yidhahdaa. waa xanuunadii ilbaxnimadan tirada badan leh iyo cunnadan tirada badan leh ay soo kordhisay. sidaa awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa bishan inaynu soonno, oo soonkaasi aynu uga dan leennay inaynu ilaahay ku caabudno marka koowaad. yacni caafimaadkiiyo waxani waa meel dambe. waxaa u horreeya inaad ilaahay ku caabudayso. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xadiidkii uu tilmaamayey yatruku طacaamahu wa sharaabahu min ajli, xadiisulqudsiga ahaa. ilaahay baa wuxuu leeyahay qofka muslimka ah cunnadiisa iyo cabistiisaba aniga dartay buu iga tegey. saa awgeed camal kastoo bini aadamku leeyahay isaga ayaa iska leh, soonka mooyaane. soonka anigaa gaaru le baa la leeyahy subxaana wa tacaala, si gaarana uga abaalmarinaya. waxaan leenahay qofku wuxuu ugu jeclaa hadduu awoodi karo inuu xakameeyo o ilaaliyo
oo ah cunnadii iyo cabistii iyo wixii hadduu awoodi karo inuu ka baxo ma'luufaadka insaanku barashadu waa dhib waxaa laga yaabaa wakti aad koob shaaha cabi jirtay waktigii marka gaadho waad iska xasuusanaysaa isagaan wax badan oo nafciiba kuu taraysa waayo waad baratay waxaa ulfiga la yidhaahdaa aad buu u dhib badan yahay walidalik ramadaantu waa madraso ama waa dugsi tababareed oo ilaahay ugu talagalay basharka muslimiinta ah oo dhammi inay galaan qof waliba maalintaasi inuu gaajoodo si uu u barto waxyaabo badan oo khayra kow wuxuu baranayaa soonku waa junna buu nebigu ku tilmaamay waa gaashaan gaashaan wuxuu ka yahay min ismi dunya wa cadaabi alaakhira adduunka dembigiisuu gaashaan ka yahay adduunka dembigiisa wuxuu gaashaan uga yahay qofku waxyaabo badan oo shahwaatu nafsigaa waxa keenay dheragtan iyo cunnadan badan sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu dhallinyarada la hadlayey waxa uu tilmaamay yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulba'a falyatazawaj war dhallinyaro ninkii guursan karaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ha guursado qofkaan guursan karin muxuu samaynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala shahwa nafsiya buu qofka bini aadamkaa ku abuuray rag iyo dumarba laakiin muxuu samaynayaa qofku waxa uu nebigu u tilmaamay cilaaji dhab ah dawo dhab ah oo nafta lagu xakameeyo war ninkii guursan kari waayo soom buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fainahu agadu lilbasar waaxsanu lilfarj kii hore ee guurku intaa horaa lagu sheegay waman lam yastatic waxaa la yidhi facalayhi bisawm faina lahu wijaa shahwaatu nafsigoo dhan waxa xakameeya waa soonka maadaama uu yahay soonka waxa xakamaynaya waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ahi si uu iraadadiisa iyo doonistiisa uu tababaro si bishan ay u noqoto bil uu jihaatamayo oo nafya shaytaan uu la jihaatamayo bil ay u noqoto uu rabo inuu ka xoroobo wax allaaliya wixii caado sayi-a u lahaa iyo xuma u lahaay oo dhan bil la rabo inuu jidhkiisa tarengareeyo naftiisaba oo uu ku tarengareeyo ilaahay daacadiisa oo maalintii inuu soomanaado oo cunno la'aado oo uu afkiisa xidho oo uu ishiisa xidho oo uu dhegtiisa xidho wixii macaasi oo dhan ka xidho yani intaad afkuun xidhato oo cunnada iska dayso haddana aad wax caydo wax maagto oo kan samayso ma aha waxaa la rabaa qofka muslimkii inuu bisha tan ku barto sabirka waxaa la yidhahda dhammaantii sabir dhammaantii sabirku waa wax la isbaro walidalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiis badan waxa uu ku tilmaamayaa waxa looga baahan yahay qofka muslimkii inaanay ahayn oo qura inuu cunnada iska daayo qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu war dadka mu'miniinta ahow sabra oo la sabir dhigta baa la leeyahay naf iyo shaytaan iyo gaalaba yani cidda cadowgaagaad haysaan maaha cadow fudud oo maalinta u horraysaba jabaya ama shanacasha markaad soontaba aad ka takhallusaysa maaha waa cadow isna kuu sabraya muraawada kugu samaynayo intaa raba inuu dib kuu celiyo idan waxaa lagaa rabaa inaad la sabir dhigatid oo sabirkaagu uu noqdo mid tiro badanaya walidalik bishani ma aha saa dadka badhay u fahmaan bil maalintiina la hurdo habeenkiina wax la cuno oo la soo jeedo waktigii cunnada un la bedelay wax kaloo badan oo isbedelay baanu jirin awalba habeenkii fiidka intaad iska seexato baad subaxii soo toos jirtay adigoo 8 saacadood 9 saacadood waxba cunin intii inaad maalin ku bedasho qura maaha waxa la rabaa waxa la rabaa waxa weeyaan inaad maalintii si dhaba u soomanaatid si aad u heshid tarbiyadani maxay tahay waxay tahay askariga caadiga marka la tababarayo looma sheego war hadala lama yidhaahdo un qoriga saasaa loo cabeeya saana waa loo ridaa cadowgu markuu intaas ku soo jirsadaa la ridaa buuraha waa la koraa meeshii kaa soo horbaxda saasaa looga baxa biyaha waa la iska daayaayo waa la yaraystaa intaa haddaad nin u sheegto ma u malaynaysaa inuu ku dagaalgelayo tidhaahdo waa lagu tarengareeyey haddaba front line ka qabo horo dagaalka gal xabadana saasa beerkaa dhulka la dhigaa cagaana waa la isku duwaa waa ku kaa dagaal tag haddaad tidhaahdo ma ku dagaal tegaya waa maya naftaada iyo meeshay u jilicsantahay goormaad ogaan karaysaa waxaad ogaan karaysaa markaaad jarribtid
ee wax ka tijaabisid. idan ramadaan waa bil loogu talagalay qofka muslimka inuu jihaatamo oo uu naf iyo shaytaan iyo cadow iyo cid walba la jihaatamo oo koow uu ku jihaatamo inuu doonistiisa iyo go-aankiisa inuu adkayn karo. maanta waxaa laga yaabaa marka lagu wacdiyay inaad tidhaahdo waagaasi hadduu beriyo qaad iyo sigaar damba ha u noqonin, waxaan khayr beelaha lacagtaadina ku maratay laleeyahna waa xaran maxaa kugu wada. waxaa laga yaabaa maanta marka sheekhu ku wacdiyay inaad tidhaahdo habeen dambe ha isku seexaninun, maxaad la huridaa ma baktaa tahay, kacoo ilaahay u tuko. saa dambe marka mid kale ku wacdiya waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo maxaa been kugu wado, runun sheeg, ilaahay baa ku abuurto ku arsaaqaye. laakiin naftu mar dhown bay ku leedahay saa dambaad horta runta sheegaya iminka beenta waxoogaa baad ku helaysaa iska wata. mar dambe un bay kuu sheegaysaan horta bisha dambaad joojin doontaa ee maanta iska sii qayib. aroorta horta baakidka intaad damaynayso iska sii wad, ka dambaanad iibsan doonini. waa maxay waa lagu seeta dheerinaya naftu. laakiin maxay u baahan tahay? waxay u baahan tahay in la xakameeyo. waxay u baahan tahay inuu qofku doonistiisa iyo go-aankiisa. maanta laga yaabaa inaad tidhahdo wararta qur-aanka maxaad u qaybi weyday? qayb. laba cashuu fadhiisanayaa, min laba safxuu qaybayaa, dhowr suuradood buu soo wadayaa, xagga markuu kasii wado xagga dambe ka soo ilaabayaa, dabeetana war waa dhib badan yahay buu is odhanayaa. isuu aayaraayar buu uga baxaya. naftu waxay u baahan tahay in waxa aad rabto inaad ku tarengarayso inaad xakamayso ilaa iyo intay dacalka kale ka gaadhayso. ramadaan marka maaha bil caajis iyo daal iyo lulo iyo habeenkiioo la soo jeedo, maalintiioo la hurdo, habeenkiioo wax la cuno ama la qayilo, maalintiioo laska wada hurdo. nooca maaha ramadaan. ramadaan waa bil loogu talagalay camal wixii aad qabsan jirta inaad qabsato. kow inaad soonto, ilaahay aad u soonto adigoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaana wa tacaala, adigoo raba inaad naar ka baxsato. waayo waxaa la yidhi ramadaan ama soomku waa gaashaan naarta layskaga gufeeyo, layskaga celiyo. adigoo raba inaad janno ku gaadho, waayo waxaa nebigu sugayaa in gurufaadka jannada meelaha ugu sarsareeya waxa lagu gala ay soontu ka mid tahay, ama se albaabada jannada sideedaaba mid ka midi inuu yahay maxay baab uu ka gala dadka soomanoo quri. sidaa daraaddeed qofku kow wuxuu u soomayay inuu ilaahay ku caabudo subxaana wa tacaala iyo cibaadadaasu ku helo. laba wuxuu u soomayay inuu naftiisa ku tarbiyeeyo oo mansilatu taqwa maaha meel si fudud lagu gaadho, meel dhadhowna maaha oo habeen iyo maalin lagu gaadho, waa meel u baahan camal joogto ah. idan ramadaantu waa qofku meel uu iskaga jaro wax allaaliya wixii caado xun u lahaa. wax allaaliya wixii caado xun u lahaa waa meeluu ku barto dulqaadka. ilaahay bishatan wuxuu ina yidhi xataa haddii lagaa gardaranayo lagu caayo waxaa lagu yidhi dulqaado. nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi muxuu tilmaamayay haddii qof uu ku caayo ama uu ku maago ama uu kula dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa buu nebigu yidhi innii saa'im. laguma odhan hadda iska celi, asalku waa fajazaau sayi'atin sayi'atin mislaha. laakiin ramadaan waxaa la rabaa in madraso kale lagaa soo saaro. waxaa la doonayaa in naftatan la baro dulqaadka. oo maanta inta ugu badan le qof yacni waxa kuugu weyne waxay ahayd diintaadu. dadku arrimaha diintooda marka wax la yeelo waaba isaga dulqaataan. mid diin caaya, mid waxaan samaynaya, kuwa sharciga ka tegay, qaar isqaawiya, wax walba waa loo dulqaadanaya. haddii se adiga lagu caayo xawlalmariidada ku kacaya caro daraaddeed. yacni nafta yar si aad ugu karayso ugu cadhoonayso ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisaba inaad ugu cadhoon baa laga yaabaa. ilaah iyo rasuulkiisa wax laga sheegaya inaad ugu cadhoon baa laga yaabaa. laakiin adiga marka wax lagaa sheegaya in xawlalmariidada ku karaan. idan si dulqaadka laguu baro laguma odhan waxa kaloo dhan ka dulqaado. waxaa lagu yidhi adiga marka lagu caayo haddaba ama se lagula dagaalamo, in qaatalaka ahad aw shaatalak baa lagu yidhi. adiga haddii lagu caayo ama lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa buu nebigu leeyahy fa innii saa'im, war waan soomanahay ku dheh. waan soomanay macnaheedu waa maxay? waxaa la rabaa naftaada in xilmiga la baro, dulqaadka. nebigu wuxuu leeyahy inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum. xadiidkii ka sugnaa nebigu wuxuu tilmaamayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cilmigu waa barasho. qofna intuu meel fadhiisto iskagama soo dego, ee waa qof habeenkii u soo jeeday oo maalintii daraaseeyey oo sheekhu wuxuu u dhigay ku noqday oo intaasoo kitaab sii baadhay oo masalada isku dayay inay isaga u baxdo o u dilaacdo oo wax badanoo waktiya ku lumiyey. idan cilmigu waa barasho buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. wuxuu kaloo yidhi dulqaadkuna waa bitaxallum, waa dulqaadkuna waa barasho isna. asalka waxaa jirta naftu inay u dhalato waayo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabigu u yimi waa kii ku lahaa laba khasloo ilaahay jecel yahay baad wada leedahay. labadii khaslo ama labadii shay oo uu
alla jeceliya lugaad leedahay waxaa ka mida inuu ku tilmaamay xilmiga dulqaadka dabeetana wuxuu yidhi makhasalada anu waa iska doondoonaba mise waa kuwa jibiliya waa jibili buu nebigu ku yidhi ilahay baa kugu abuuray oo waa abuurkii ilaahay ku siiyey bay ka mid tahay dadku asliya wuu kala dulqaad badan yahay laakiin iyadoo la kala dulqaad badan yahay haddana nafta la bari karaa ka dulqaadka yarle wuu isbari karaa nafta wuu xakamayn karaa walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu ku ammaanaya waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas kuwa cadhadooda qarsanaya kuwa dadka iska cafinaya ramadaan markaa waxaa la rabaa inay noqoto bilaad nafta tababarto oo haddaad hadal badnayd aad hadal badnida iska dayso man lam yadac qawla zuuri waalcamala bih falaysa lilahi xaaja nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiidkii ka sugnaaday waa kay tilmaamayay ninka aan ka tegin hadalka beenta iyo barkhaati beenaala iyo ku camalfalkiisa ilaahay baahi uma qabo inuu ka tago طacaamkiisa iyo sharaabkiisa idan waxaa la rabaa waxa weeyaan inaynu nafta barno sabirka inay ka sabirto hawa nafs inay ku sabirto ada alghayr dadka kale dhibta ka soo gaadhaysa inay ku sabirto takaaliifta mashaqadeeda daacada naftu iyo waxay doonayso ee shahwaata inaad xakamayso oo aad ugu horraysiisayba cunnadii iyo wixii la nooc ah haddii markii hore waxyaabaha sharcigu bannayn aad cuni jirteen dee iyaga aad furabad iskaga tagto aad weligaaba dhaafto qaad iyo sigaar iyo wixii la nooc aha maalinta ramadaan oo dhan haddaad sigaar ka qatantay maxaad habeenkii u cabbi kusii wadunde mar haddaad 12 saacadood uu kusoo dhaaftay ama 14 saacadood maxaa kugu celinaya maqribka markay gaadho maqribkana allihii ku yidhi waa mamnuuc weli waa kuleeyahy waa mamnuuc idan jooji sida kuwaas nafta traingaree oo dib ha u celini waxaad u baahantay marka hawa nafsi inaad ka xorowdo dee kuwa jannada galana maxaa lagu tilmaamay wanaha nafsa can ilhawa maxaa la yidhi qoladaas unbaa maxay ah fa ina aljannata hiya alma'wa ninka naftu waxay doonayso ka celiya qoladaas baa ma'wigoodu janno yahay baa la yidhi marka waxaa laga yaaba ilaa maanta haddii lagu yidhaahdo haddaad 5 saacadood sigaarka iska dayso ama $5,000 baad leedahay ma u malaynaysa mid sigaar cabo magaalada jooga inuu cabbi lahaa $5,000 la sheego la waayo nin waliba wuxuu isleeyahy war naftu bal horta meeshay doontee intan ka joojiyo 5,000 horta qaado bal ka warran iyadoo lagu leeyahay janna carduha asamaawaatu walardu baad leedahay haddaad iska dayso wada ilahay amarkiisa raacdo oo ilahay qur-aanku leeyahay ninkii wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa la leeyahy war nafta hawadeeda haddaad u diiddo jannaa kuu ah baa la yidhi degaan idan inaad qiiq laga burbursiiyo naftaada waxyeelaya aad dhaafsato janno waa waxaad u dhib badan adoo weliba ramadaan jooga adoo weliba jooga bishii cibaadada loogu talagalay adigoo jooga bishii loogu talagalay inaad nafta rabayso kobciso oo barbaariso oo ad xumo oo dhan ka ilaaliso idan waxaa muhimkii wuxuu yahay inaynu nafta barno asabru can ilhawa inay hawadeeda ka tagto oo aad iminka usii qorshayso siday u joojin lahayd inaynu nafta barno inay ada annaas aw ada alghayr dhibta dadka ka soo gaadhaysa inay ku dul qaadato inaad barto inaad nafta bartid inaad daacada ku sandullaysid daacadu waa takliif yani takaaliif bay shareecadu tidhahdaa takliifkuna kulfa waa wax mashaqa ku jirto dhib baa ku jirta sidaa awgeed baa culamaa'i salaf waxa rag ka mida laga sheegaa wuxuu idhi 20 sannadood naftaan ku xakamaynayay buu yidhi inay salaatuleyl u kacdo 20kii dambena waan macaansanayay buu leeyahy yani 20kii hore culays bay ahayd oo waan ku qasbayay inay habeen kasta toosto markii dambena munaajaatu rabbi alcaalamiin baa dhadhan iyo xalaawo ii yeeshay oo anaaba macaansanayo u baahnaa buu leeyahy naftu waxay u baahan tahay muddo in la xakameeyo la tolo oo la qasbo oo la sandulleeyo oo lagu adkeeyo idan waxaad u baahan tahay bishatan maalin oo dhan inaad soomanaatid maalin oo dhan inaad wardidid maalin oo dhan inaad xoogsatid maalin oo dhan inaad ilaahay ka baqatid waxaad kaloo u baahan tahay habeen oo dhan inaad taagnaatid ramadaantii inaad habeen oo dhan taagnaatid oo ilaahay baridid subxaana wa tacaala inta ugu badan leh haddaad nafta aynu ka adkaano ilaahay baa ballan qaaday iyadoo dullaysan inuu u gargaarayo walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adilla baa ilaahay leeyahy beder ba ilaahay waa idiin gargaaray baa la yidhi idinkoo adilla ah daliilnimadu waa maxay waa ummada aan haysanin maxay almuqawamaat alxarbiya ama wixii lagu guulaysan jiray nimaanu agtiisa oolin oo ilaahay subxaana wa tacaala haddana uu gargaarayo idan waxayn leenahay
xataa macrakooyinkii waaweynaaye muslimiintu galeen intooda ugu badani ramadaan baa ilaahay ugu gargaaray xataa cahdigii nebiga beder baa ka mid a fatxu maka ka mid a yacni ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo sooman ayay u dirirayeen oo u dagaalamayeen oo alla subxaana wa tacaala u gargaarayay waxaynu markaasi u baahan nahay inaynu isticdaad usii samayno bishatan ramadaan oo ah inaynu ku talagalno naftan inaynu rabayno inaad naftan gaadhsiiso mansilatu taqwa mansilati taqwa halkay ilaahay kaga cabsan lahayd halkay qur-aanba ku fahmi lahayd waayo qur-aanku yuu wax u taraa dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin baa ilahay yidhi kitaabkaas qur'aankaa wuxuunbuu hanuun u yahay yuu huda u yahay hanuun yuu u yahay tilmaame yuu u yahay lilmuttaqiin baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala kuwa ilahay ka cabsada ahlu taqwuna waa kuwan qur-aanka ilaahay aayaad ka dambeeya kusii sifaynayo waxaynu markaasi leenahay soomku waa nafta oo la tababarayo ee waa inaynan ku talagelin bil hurdo badan iyo cuno badan iyo cajsi iyo kasli lagu sita war cajsiga iyo kasligu waa bukaanadu nebi moxamed ilaahay ka magan geli jiray baa marka horeba inaad bishii cibaadadaad u xidhxidhaan lahayd cajsi iyo kasli ku galaan oo aad noqoto qof intuu shaqadiisii ka tegay seexday unuu yidhaha waan soomano habeen iyo maalinba meel u quurinaya inaad ahaato cajsigan iyo kasliga kani waa wixii marka horeba nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ducooyinkiisii maxaa ka mid ah allahuma innii acuudu bika min alcajsi waalkasl ilaahay o adaan kaa magan galay buu lehay caajisnimo iyo kaslaannimo daal iyo waxa la nooca adaan kaa magan galay idan bishaadii cibaada inay noqoto wixii alla uu nebigu ka magan gelaya waa wax foolxun idan bisha taan waa inaynu ku talagalnaa inay noqoto bil aynu u diyaar garowno inaad askarinimo marayso laakiin askarinimo xaggaad u maraysa askarinimo janno lagu galaad ku socotaa oo naar lagaga xoroobo askarinimo cadowgii ugu xooga badnaa la yskaga celiyo oo ah shaytaan iyo ibliis inaad iska celiso nafta inaad iska celiso waayo nafta bini aadamkaahi ilaahay qur-aanka mar wuxuu ku tilmaamaya inay tahay ina nafsa la amaaratun bisuu inay tahay mid xumaha dadka farta hawadeeda waxay doonayso shahwaadkeeday rabtaa inay ku hogaamiso laakiin waa la tarbiyan karaa bay culammadu yidhahdaan waxaa la gaadhsiin karaa annafsi allawaama lawaamadu bay yidhahdeen waata iscanaanata marka khayr fiicani dhaafo iscanaanata ama macsi markay samayso ka toobadka intee weli hoggaanka isu haysa waa laga sii kori karaa baa la yidhahdaa ee waxaa la gaadhi karaa bay culammadu sheegaan maxay annafsi almutma'inna yaa ayatuha annafsu almutma'inna kuwa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo oo aad ku xasishay ilaahay dikrigiisa macaansato aanu mashaqiya dhibba ku ahayn alaa bidikri illahi tatma'inu alquluub itmi'inaankaasi gaadhay dhadhan ay u samaynaysaa cibaadadu iimaanka xalaawadiisa dhadhamiyey waayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamayaa iimaanku inuu طacmi leeyuu sheegay dhadhan inuu leeyahy bale inuu xalaawo leeyahy daaqa طacma aliimaan iyo daaqa xalaawata aliimaan labadaba axaadiista waa soo arortay dhadhanka iimaanku leeya in la dhadhansado waaba macaanka in la dhadhamiyo inta aan macaanka cibaadadu kuu dhadhamaynin naftu weli tarbiyay kaaga baahantay weli kobcin bay u baahantahy macrifo khalyama waa laga yaaba macrifo badan inay madaxaaga ka buuxdo inaad in badan garanayso waxa shirkiga iyo waxa bidcada ah inaad in badan garanayso waxa saxa iyo waxa qaladka ah laakiin haddana naftaadu inaanad si fiican u tarbiyaynin nafta in si wanaagsan loo tarbiyeeyaa waa waxa ramadaan laynoogu waajib yeelay inay noqoto markaasi bil aad ku tala gasho inaad naftan u xidhxidho oo aad ka saarto tuqyaanka waayo insaanku markuu dharguun buu qooqu bilaabmaa kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagna wuxuu qofku ilaahay nimcadiisa dhadhamin karaa marka aad dareento gaajada iyo daalka iyo alamka iyo dhibta markaasay nimcadu dhadhankeedu leedahay ilahay wuxuu ina leeyahy wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allaaliya waxaa nimco haysataan xagga allay ka timid laakiin nimcadu marka la waayaabaa dadku dareemaa hadda waad caafimaad qabtaa caafimaadku qiimo kulama laha ama se ugu yaraan ma xasuusnid inaad caafimaad qabto xataa inaad tidhahda alxamdu lilah ilah wadaa caafimaadkiisa ma xasuusin laakiin markaad isa soo dul taagto mid ay ka sii baxayso ama aad aragto mid taahayo sakaraadsan ama aad dakhtarka tagto aragto dadkan jiifjiifa iyo say tahay markaasaad waxaad dareemaysaa nimcadaad haysaynaysay
waxa laga yaabaa adigu markan inaan waxoogaa shilimi jeebkaaga ku jirin inay ku cadho gelisayba aad leedahay saako dhan waa kalaasana wallahi shilin ma soo qabanin intaa un inaad la xanaaqsan tahay si aanad arkaynin waxa kale nimca aad ku sugan tahay iyo inta ay leegtay walidalik ba waxay idhaahdaan maalan sixadu bay idhaahdaan waa taajun fii ru'uusi lasixa bay idhaahdaan caafimaadku bay idhahdaan waa taaj saaran maxay kuwa caafimaadka qaba laa yaraaha ila almardaa bay idhahdeen laakiin ma arka bay idhaahdeen kuwa buka mooyaane adigu taajkan caafimaadka ku saaran arki mayside kan liita ee taa haya ee baahan baa arkaya kaagan durdurinaya iyo wuxuu nimco haysto idan ramadaan waa biluu qofka muslimkii wixii ilaahay nimco siiyey uu dareemo markaad gaajooto waxaad garanaysaa dadkii gaajadu haysay markaad harraaddo waxaad garanaysaa harraadku dadku hayay markaad daasho waxaad garanaysaa dadka daalku hayo waxaasoo dhib oo alam oo nafta soo maraya mar kale waxaa laga yaabaa salaadii inayn hooyadaa quraac ku siin jirtay ama adigu aad iska soo quraacan jirtay uun duurkiina inaad qada bisil cuni jirtay dheeraadun inaad daydaysay waxaanaad nimco haysaba inaynay kuu muuqanin inta kaa maqanuun ama dadka kale intuu haysta unbaa kuu muuqatay ee waxaad nimco agtaada yaalloo dhami kuuma muuqan ilahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy waqaliilun min cibaadiya shakuur marka horeba waxa yar baa ilahay yidhi addoomaha inta shukri naqda ee garata nimcooyinka la siiyey idan ramadaan waa bil laynagu tarbiyaynayo inaynu dareenno waxaad nimco haysato waxa alle subxaana wa tacaala nimco ku siiyey ee maal leh ee guri leh ee hoy leh ee nabad leh ee cibaada leh waxaad haysato ee kayrkaa uu la'yahay waa meel lagaaga baahnaa inaad dareento sidaa awgeed ramadaanka waa bil gaajo dadkao dhan la wada saaray ama xoolo lahow ama xoolo halaalin ama faqiir ahow ama qani ahow ilahay wuxuu yidhi intaasoo saacadood waa la wada qaqanaanaya qof waliba gaajada waa baranaya kii xoolo lahaa iyo kaan xoolo lahaynba dadkao dhan waxaa la leeyahy waa muwaasaat fi lxirmaan yani baahidaa laydinku walaalaynaya si aad u garata maxay berrinta dadka baahan dhibta haysata haddaad weligaa iska dargi jirtay uun waxay ka sheegayeen qolo gaaleed oo kibirtay ayaa dad mudaharaadaya aragta war dadkani maxay waayeen baa la yidhi waxaa la yidhi roodhidii baa faransiiska laga waayo dadkii baa mudaharaadaya oo may koogooda cunaan bay tiri hadday roodhida waayeen yani caqligeedu wuxuu u fakerayay dadka roodhi waayey dee keegna waa iska haystaane keega ha cunaan labada waxay ahayd sida kale yani qofku markuu dhergo wax badan ma oga walidalik markaad gaajooto wax badan baad dareemaysa waxaad dareemaysaa masaakiinta iyo inaad u naxariisato waxaad dareemaysaa inaad ka mid noqoto inamaa nuطcimukum liwajhi illahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukura inaad noqoto kuwa ilahay la wayuطcimuuna aطcaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inaanad ka mid noqonin kuwa ilaahay lahaa walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin qaar baa ilahay wuxuu ku ceebeeyey ma quudiyaan lama odhan ma dhiiri geliyaan baa la yidhi iyagu masaakiinta in la quudiyo waayo dadku saddex unbuu uqaybsayay mid wax haysta mid aan waxba haysanin ka wax baryaya mid baa jira aan waxba haysan laakiin kuwa haysta wax ka siin kara adiga waxaa lagu rabaa haddaan waxba haysan laakiin kelmadaadu ay masmuuc tahay inaad tiraa war masaakiinta ha la quudiyo waa la quudinaya haddaad inta aadna ku bakaysho waxaad soo gelaysaa walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin masaakiinta ma quudiyo kuwaa la yidhi ma booriyo in masaakiinta la quudiyo idan bisha ramadaan waa bil qofka muslimkaa la baro gacan furaanta naftu bakaylnimada ninna looma dhigo way iska wadataa ninna deris bakaylnima cid uma baahna inuu dhigo ilaahay baa yidhi wauxdirat ilanfusu shuxa bukliga waa lagu ururiyey ilaahay baa yidhi laakiin wuxuu kaloo ilahay yidhi subxaana wa tacaala waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun kuwa bakaylnimada naftooda laga ilaaliyo kuwaas unbaa liibaanay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala si awgeed baa bisha tan waxaa lagu tilmaamay inuu nebigu ahaa maxay ajwad bilkhayri min alriixi lmursala bay yidhahdaan bisha tan nebigu dabaysha babanaysa gacantiisu way ka dheerayn jirtay isagoo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh weligiiba wax la weydiistay maya aan odhanin qofba aan may ku odhan wax ku siin maayo qofnaba aan ku odhan ee wax kasta uu haysta bixinayey oo hadduu wax waaye xad gaadhsiisnaa inuu dadka kale yidhahdo war yaa martidan iga kaxeeyey ama yaa qofkan wax iga siiyey ama inuu isu taago o yidhahdo war kuwan waxa la soo siiyo isagoo sidaa dareemayey ayaa haddana waxaa la yidhahdaa bisha tan bilaha kaleo dhan wuu kasii deeqsiisnaa idan bisha ramadaan waa bil lagaa rabo maadaama la rabay nafta inaad tarbiyayso waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso soon waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso salaatu leil waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso qur-aanka iyo akhriskiisa waxaa la rabaa inaad ku tarbiyayso adduunka iyo bixistiisa gacantaadu inay furaato bisha tan
وآد براتو سيدا وحلو بحيو ولذلك بقى النبي صلوات الله وسلامه عليه وحيابه أجر كبدن كنت المامي محاكم لها إفطار الصائم قفك الله مسكين وصومن هذا فرسيسه وحيابه بشر لبحصدا أعماشه وقفع في عم بكمتي سادر هدد من النبي قولها من فطر صائما كان له مثل أجري قف صومن كافوريا أجر كيسا أجر ليك بوليه غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا كان صومنا يدان أجر كيسا وحبل لك كوبين إن شاء الله وحن حديث يجا يواس كسو كوبي لكن وحن رجيني وحن حسن صحيحين أنا شيء وحاو النبي قلت المام يا صلوات الله وسلامه عليه إن وشيء وحبيحنتو سيدا يوفي عنها إيا إن دتك اللقوديو إذن بشتني وابلا برطو قفك مسلم كاي إنو قرطو كوا كلي ولا الذي مسلمين تيباهن إيا قاتشة هايسا إيا وحبيحنتا إنو برطو إيا نحدين دتك إن لون نحرستا إنو برطو وايو نحرست إلهي ما إنو صدق غضايستي ربنا إنو وحدتك ونحرسنا إلهي نحرستي سوا حكا فلان أمثلة النبي بحي صلوات الله وسلامه عليه حديث البخاري يدو ضل صاغ مبطي أو قبل المهدي ويدي وهو الميراء إن الشيء لا أو بالاستمع يسوع النبي واركي صحابة يوردن ضد كبا أركي يعني سلات يسور وريسور ديسيل الموت ديسو مركي دم كيرا يا إن شو مرجعها الشيء ويلبوا ضلابط يكون نبض يدو مركي يراس كنا ويسمو النبي وحكوا لي صحابة ورمو وين ستنين المهن ده كل ذي يعني هو موقف حرجة المها يقور السنة دي يسوي مركز شيء لا تكون نبطي إن يدبس كثير ده معقول ما وحنا بيقولوا مو ملاني ستاسين المها ده كل ذي مركز سال بيقول ما إله رسول كيسيو فالله أرحمه بعباده من هذه بولدها أبو نبي إلهي الدومي سوقنا حريص بدن ثاني المها ده سنة يقول ده جنتهاي إلهي ما كان حريص بدن إذن إلهي سبحانه وتعالى وحو إن قربا إنه نحرسته برنا بشتك وإنه نحرسنه ضدك ضعفضها مساكينتا أغونتا وإلهي وحو إن ليه وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إنه نسو نحرسنه على نوت المامي هبر لقو عذابي آخرة إنه بسطح لطو وحرقوا دين ويدي سينة دين ويدي قفت الضطح الدين لا يرم حاضر مالين سادي بساسك حرستيس وحنا لقودين سوق راه لو سي دينين ليسكو عذابيو ان وحنا لنا وح لو باهي انو برانو بشتن وح aad u tira badan leh wax aad u tira badan leh inuu bishata baro taas waxay u baahantay bishan waa bil fadaa'il aad u tira badan ku soo aroortay istiعدادkeena uga baahantay waa maxay waa inaynu soogaysiino oo u diyaar garowno حين وديار قروبينا وين وديار قروبا بشاسات إلهي يقسو تاقي لحي إيش صدم كاس مرنبا كو تراويح دورتا دم يسير سلاد واجبين فرالكيات قرافين ضدك وحن أركا وتراويح دو ددالة وين بدن صلاة الصبح جمع عيد وكتغير تراويح دور دنها لصلاة الصبح ما كفي عنه صلاة الصبح هي جمع عيد بقى خير بدن تراويح ده صادرات كو بشن مرهدات ددالة صورة شنتي فرالكاها إيه جمع كنت كشودو دي وينات كدلاش ويجا وينات مالك تانك وضع هذا ليالا انت كدب وينات كنت إذا إنت صلاة الليل كاكا وقعدو أما تراويح كسوتكو أما كاليقا قولي كتكو أما مر دمتكو أما مر هرتكو مر ولي بوقوب بنانت إنت صلاة بتصطو إنت قرآن بدن أخرده نبي صلوات الله وسلامه عليه قرآن كأخرس كي سووا اللازم يجري لكن بشهر رمضان وكبرنا ولذلك حتى جبريل انتو يمي أيو بليه رمضان لبتشير بلا سبعية تيوين لما يسوي نبي وقريون يوحوا لا سبعية محي لبتشير بو بشهر رمضان لا سبعية إذا قرآن يا آخر سكيس حوكسي بين حوكس النور دمور بعضا كما انتو صباح والبك الله نيف قيلا أما حتى دلاي أما إما كفولا نسا سوشا غيستا هلا يابا نيف قيلا فولا نسا وامسا استحبوا عليكم الدولار مالها سيساريبات كبر يسامان مالين يلا استحبوا الله دولار وحي كبدا بيجوكتا هل آيات هذا أخرده بالنبي قولي ها قيلة دلائسة هل آيات ما كخير بدا بالنبي قولي لبن نكي آخريانا لبا قيلة دلائي يسوى شغيستا ليه صدح نكي آخريا وصدح واحد صحيحة
وميانة أودي كره فاتحة هذا أخرده معناه إذا وحوي تدبق له ضليبات سقيستين ديمهود إمي ساد بكاس كده يستعين سقيسته يعني وين القرآن أخرت كاجي بطا ولي برمضان وين كسي بطا وقت جي كله أنت أخريج شرتين رمضان وقت جي كله أنت أخريج شرت وين كسي بطا ولي بهبين كيس كل ضيدا أنت بدن هذا طيب سنت هنا سلادها كنت كتو وحبك أحمد ما حتى هذا 9 مون هيسو رجع أول بسط 9 مون دم بوضع كوبي تبغى كذا رجع ضد هذا ضد كوبي تبغى 9 ما كنت كم حكى أحمد يا إن هذا تبع مهمة قرآن بدن إن هذا خريطه وهذا لازمته أي مهمة وحمهمة إن الصلاة بدن تكتو وحمهمة النفط إن تكون ربيسو إن بيشة تنحم أردن إسكديسو هذا عيب بدنيت هذا كفتم بدنيت هذا الحمام بدنيت وحاسو درينا كبورته إذا ما حلينا وحين وباهني تريننج بينه قالنا إن تريننج كانوا صحيح حرامنا وإنت أنا يبشوا قلنين إن القرشينه محان كتلا قال بشرنا قطه إمس الصلاة دين هبين كتو كده مالتي إن وردين تلاك أخرسته إن ننتهي صومه يعني وين تكون تلاقى شاء بشو انت هاني بلانين قرشها غردن أوراد أدخري لهيدي أذكرت أدخري لهيدي يسادوا عبادة يسال لهيد وين تكون تلاقى شاء وين تكون تلاقى شاء بشة وروان نمعه وتجارة وموسم ووقت أدو باهنتين دي الله سبحانه وتعالى التي جاريسته وقت قاسي سيانو كوردا في لهين استعداد كيد وين ندمانته السبعين ولذلك فهو حلقة الشيخ السلف لحظة بلوضة رمضان كو حكتنا ما يرادة وحي كو دعايسين جرين بعض الرجال السلف سألة سؤال رورينيو لحظة بلوضة رمضان كو حكتنا وحي كو دعايسين جرين لا وحيان رمضان عبادة صمينين نقا أربع لحظة رمضان كو الرئيسانة إله نمتقلين وقارسي بي كو دعايسين جرين رمضان ونإله ونقادنه إنك هي كو دعايسين إله رمضان يقارسيه وروى العاور رمضان ما بلا تبين سويتنا بسمى بلاني أبين قوض بيسا ورم رمضان يعني كأنما أن وحوين وكوسوه ين كأنما أن وحوين بقى وحنا رجينيسا فعن رجينيا إن شاء الله تعالى إنه النفط إنه كنت لقى الله إنه تربيينه كوين ودوين إنه تربيينه ضدك مسلمين تودن إنه ربين كرنه دعاء إنه نقف كرنه إلهي ضدك كحده رايد nin saxan taga wuxuun baa u khayr badan ninka tolkii jannana u soo saxamiya naarna uga soo diga saxan la dirto oo geedi ka daba guuro ka uma ugu roor tol iyo qaraabiya cidaad garanaysa inaad xagga ugu sahan tagtid aad isku daydo inaad janno u rartid oo naar ka fogaysid aad isku daydid shaytaan iyo ibliis iyo gaaliya intay la halmaasha inaad ilaahay u baridid inaad ka xoroobi karto oo aad ka guulaysan karto kelmadda aan كوبانا جعله وحويان ضدك هر فرديا وحي موضان طلاب العلم جينيين وحنا أخرين وانت آخر سجتين لكن ومن باب التذكرة وانا ندن حسوسية وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين آيات تقاني حديثة تقاني بمناسبات لغوش يوغا كاقرات بطا أقوم تاديونا مثال بسيط فاكسينيا أبي بكر مركو إما آيات قرآن وكو آخرين صحابة وحيد هذا كأنما أنزلت إني من كل سودة يا نمودين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفاي مسحابة أنجرين باجرة يعني القرآن ككتشري ما يوامر كادو باهنا يدو الله حسوسيه إذن علمه أنتي سبضاني معها طلاب العلم مركا لو شيء علم جديد إذن ما أخرنا يا من نصوص إذن أقول إذن ما أخرنا لكن إن شاء الله وحر رجاني وقتك وباهنا إنه حسوسنا إن الله كدقى إنه حسوسنا والله أعلم بالله توفيق جزاه الله خير الجزاء إلهي كابال مريو شيخ مصطفى محاضرة قيم كورنتي نوسو جديي waxaan runtii aan idin xasuusin lahaa inay dumarku ayagu horeeyaan oo inagu aynu yar joogno haddaan raggi nahay intaasaan idin xasuusin lahaa annagu rag ahaan dumarka inaga horeynaya ayagu ha inaga horeeyaan anuguna kelimad baan idin xasuusin lahaa bisha ku saabsan waxaa badatay dadku inay maalmo kala nooca soomaan waxa habboon in la wada soomo dadka meesha qura wada deganay maalin keliya ramadaantu inay maalin qura noqoto
labada qowle fiqiga culamada ka sugan labadaba rijaal salafa ku tegey rag waaweyn baa ku tegey rag la yaqaan baa ku tegey labada qowlba insha allahu dhibi kuma jirto middaa doonto tarjiix laakiin midnaba ma banaynayso in laba casho la kala soomo walidalik waxaan idin xasuusinayaa a'ima matalan a'imada ku tagtay in mar qura la wada soomaa inuu daliilkaasi raajix yahay waxaa ka mida matalan sheekh alalbani raxmat ullahi calayh laakiin fi tamaam ilmanna marka uu tilmaamo ra'yiga raajixa ayuu haddana wuxuu leeyahy waxaan ku talinayaa buu leeyahy maadaama maanta muslimiinta ay qaybsameen oo duwal yaryar ay noqdeen qofka muslimkii inuu dawladdu la nooliyo wakhtigeeda la soomo ayaan kula talinayaa buu leeyahy si looga baxsada buu leeyahy magaalo qura inay iskhilaafto dhowr waktiyoo kala gedisanayso waa isagoo ra'yiga kale fiqiga ah min xayti daliil rajaxay ayuu haddana min xayti almaslaxa waalfasaad ka ratibmaya waxa uu rajaxayaa in maalin qura soonku u wada dhaco walow ra'yigaa kalena qabay wakadalik fatwa ibnu baazna saasay ku tagtay hay-a kibaar alculamaana saasay ku tageen waxaa inugu badan in badan inaad aragto dhallinyarada sacuudiga la soomayso aan yeman la soomayn garanna maayo fatwadaasi meesha ka imanayso xataa haddaad rumaysnayd in uun meel muslima in laga arko maxaa keenay inaad sacuudigana la soonto yemanna aad la soomi weydo ama jabuutina aad la soomi weydo waxaasoo dhan soo ururi labada ra'yi min xayti daliilkaa doonto ku tagsano laakiin waxaan leenahay siday a'imati alfatwa fatwoodeen waxa habboon inay dadka magaalada wada degani maalin qura wada soomaan taasina waxa qura ay suurtagal ku tahay un in culamada magaalada degan iyo wasaarat alawqaaf ay iska kahashadaan in maalin qura dadka loo iclaamiyo dhallinyaro idina aydan isku dayin dadka inay badhna soomisaan badhna in la afursiiyo wallahu aclam taasaan idin sheegaya asalaamu calaykum wixii dambe haddii la yidhaha su-aalaha adigu